abshiro aadan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ay wiilkeeda dileen booliska magaalada Columbus bishii January 3 ayaa waxay ka codsanaysaa jaaliyadda Soomaalida inay garab istaagaan si ay u ogaato sida dhabta wiilkeeda uu geeriyooday. Waxa aynu booqanay hooyo abshiro hoyga ay ka degan tahay magaalada Columbus. waxaana weydiiyay inay inooga waramto dhacdada wiilkeeda Cabdiraxmaan Salaad uu ku dhintay iyo sida ay wax u dhaceen. magacayga abshiro aadan waaye waxaan ku noolahay magaaladan Columbus Ohio. wiilkayga Cabdiraxmaan Salaad waxaan maqlay in la dilay ay askar dishay magaaladan Columbus ay ku dishay. wiilkayga aad iyo aad ayaan ugu naxsanahay dhibaatadii ku dhacday murugo badan ayay ugu reebtay. wiilkayga waxaan maqlay 11 saac bar asagoo guriga ila jooga ayaan walaashiis ka weyn shaqo u waday oo ay waan ku raacay igu dhahay waxaan dhaw ku soo noqonaa hooyo joog. intaan gabadhii ku maqnaay markaan soo laabto gabadhii shaqada geey guriga ku soo laabtay wiilkii muu joogin. waxaan maqlay wiilkii in la dilay saacado kadib. laba booliis ayaa guriga igu imaaday waxay ugu dhaheen wiilkaaga wuu dhintay Cabdiraxmaan Salaad. yaa dilay ayaan ku dhahay waxay dhaheen askarta Mareykan ayaa dishay. booliis ayaa dilay laba nin oo cadaan ah lix xabadoodna ku dhufteen. wiilkayga aad iyo aad ayaan ugu naxay shoog ayaan qaaday naxdintii maalintaas igu dhacday ilaa hadda waan ka soo qabsan lahaa. ani dhan pressure confuse wax xataa mararka qaar waxaan qabanayo wixii kale ma kala garanayo naxdintii iyo murugadii igu dhacday hortaagan. wiilkayga ilmo yar oo baari u ahaa iskuulkiisa dhigto 15 sano hadda la igu gooday. aad iyo aad ayaan ugu xumahay marka dhibaatadaas xanuunka badan ayaa igu dhacday. booliska magaalada Columbus ilaa iyo hadda ma kula wadaageen muuqaalo ku tusaya dhacdada siday u dhacday haddii ay noqoto kaamirooyinka ay booliska wateen ama goobta falka ka dhacay kaamirooyinka ku xirnaa. wiilkayga habeenkii uu dhintay hadda muddo 5 bil ayaa ka soo wareegatay. wuxuu dhintay horta January 30 2020 aan ku jirno January 1 marka wax ilaa hadda ila soo xiriiray xaq dawlad ha noqoto xaq shicib ha noqoto xaq jaaliyad ha noqoto ruux ila soo xiriiray ma aan ahayn maalintii wiilkaas uu dhintay askarana dishay CVS oo ku taala Broad Street aan lagu dilay. wax Cabdiraxmaan Salaad oo u garab istaagay oo wax u qabtay ma jiro ilaa hadda aan ka ahayn wiigan hadda oo israacnay oo wax wanaagsan ii qabtay Ilaahay ha ku guul ha ku siiyo wuxuu dadaalku u rabo inuu ii qabto aan ka ahayn. ururada jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Columbus ilaa iyo hadda ma ku imaadeen oo ma kula baareen wiilkaada Cabdiraxmaan sida uu dhintay iyo sida dhabta ay wax u dhaceen. wax ila wadaaga male ilaa hadda wax ruux intuu ii imaado wiilkan agteeda fadhiyaan ahayn Maxamed la dhahayo oo hadda isbuucan arrimahan dhan ku jiro naxdin murugo u geysatay oo hadda bilaabay ma wax ka hor oo wax ii qabtay Ilaahay oo ma jiro ilaa hadda wax ila soo xiriir male nooc walba xaq dawlad xaq public xaq dhul maxaad jaaliyadda dhulkan ku noolaan qof wiilkaygaas ka hadlay male. Soomaalida ku nool magaalada Columbus iyo guud ahaan dalka Mareykanka codsi noocee ayaad u diraysaa? Soomaalida ku nool Columbus qaas ahaan magaaladan gobolkan aan ku noolahay waxaan u diraa in wiilkaygaas yar oo xaqdarada loo dilay oo 15 sano hadda u gooday oo hooyo dhashay 11 asaga ku ahaay oo aabihiisna ruux indhool uu yahay. waxaan ka codsanahay inay garab istaagaan dhibkan maanta aniga u dhacay qof walba ku dhici karaa marka inay wiilkaas u danqadaan ay garab istaagaan xaqiisa ay u soo dhiciyaan asbaabtii loo dilay ay ogaadaan ayaan ka codsanayaa. Maxamed Faarax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Columbus. waxa uuna go'aansaday in uu garab siiyo hooyo abshiro si ay u hesho cadaalad. ana weydiiyay Maxamed in uu inooga waramo waxa kiiskan mugdiga geliyay. Assalaamu calaykum. kiiskan inta waxaa geliyay mugdiga garab istaag ee weysay hooyo abshiro wax jaaliyadii ka soo socdo oo garab istaago xanuunkeeda la qaybsado ay markii ay kaligeed noqotay oo qof garab istaag ee weysay kiiskii mugdi saas ay gelisay wax garbaha ka soo galo jaaliyad ha noqoto ama ha noqoto organizationada oo Columbus oo Soomaalida ku yaalaan ama sheekha masaajidada ha noqoto wax maamada soo garab istaagay weysay marka kiiskii halkaas ayuu ku dumay. taariikhda Mareykanka sida aynu la socono
marar badan ayay dhacday in booliiska ay dhahaan dhacdada sidan ayada u dhacday, balse marka la fiiriyo muuqaalada goobta waxay ka dhaceen ama kaamirooyinka booliiska ay wateen, sheekada si kale ayay isku bedeshaa. marka sidee ayay kula tahay qoyskan ay ku heli karaan cadaalad dhab ah? marka cunugeena walaalkan yariiska ilaa waxaan ku heli karnaa cadaalad ilaa ay qoyska ay helaan wax kaamirada sida hadda meeshii lagu dilay cunuga CVS waa dukaan oo kaamira meel walba uga xiran tahay. midda kale kaamirad booliiska ay leeyihiin oo xiran ayaa jirto, ay xirtaan ayaa jirto. kaamirooyinkaas oo kale haddii lasoo sii daayo waxa hooyo maamada qoyska lala soo sheergareeyo waxa waaye yacni markaasay talo waxa arki kartaa wixii cunuga sababtii loo dilay. laakiin markuu ku imaado booliisku dhaho oo saani wax u dhacday ma ahan in aan iska ogolaano, waa in aan dhabta ka gaarno. waayo sanadyo badan ayaa waxaa lagu suubinaya dadkan African Americanka caseska ugu badnaadaan intii booliiska qof intay dilaan oo yacni ay dhahaan qofkaasay tole anigu soo atagrey ama booliiskii soo atagrey ama nafsadeedan u baqay qofkii oo threat ku ahayn intay yacni dilaan. marka anaga waxaan doonaynaa cadaalad, waxaan rabnaa inaan ogaano wixii dhabta sida u dhaceen, markaas ka bacdi ayaan bogsoon karnaa. sidaynu la soconno qoyska waxaa loo furay GoFundMe page si ay u helaan qareen xoogan oo dabagala xaqiiqda dhabta ah. marka arrintan maynoo faahfaahin kartaa? arrintaas waa arrin shay aad muhiim u ah oo kiiskeena naga saacideyn doono oo maamada cadaalad haddii aan u heli karno, laakiin waa inaan garab istaagnaa. GoFundMe pagekaas aan cidda aan u create gareynay in oo wixii oo yacni sadaqa lagu soo sadaqan karo qof kastoo Soomaali ah adduunka meel kasta uu ka joogo. waxaan jeclaysanaynaa in ay noogu soo daraan waxay nagu sadaqaysan karaan GoFundMegaas inay noogu sadaqaystaan sidaan u helno qaran fiican oo yacni xaqa noo soo dhicin karo. Mareykan sidaad og tahay waxa waaye haddaad haysanin wax xaquuqdaada ku doodo qaran fiican haddaad haysanin waxa waaye kiiskaada waxa waa kiis daciif uu noqonaya. laakiin markaad awoodid markaa lacag aan family group istaagno qaran oo yacni experience badan leh ayaan awoodnaa inaan kiiskaasay toolo aan faraha la galo oo sida xaqa dhabta ah uu nagu soo dhiciyo. wax kasta aad ku awoodin familkaasay toolo helihooba iyo maskaxba waan soo dhaweynaynaa insha Allah. waxaa jira dad qaar aanan isticmaalin GoFundMe. dadka nooca maamada lacag si toos ah ma u soo diri karaan oo xawaaladaha lacagta ma u soo marin karaan? way u soo dhigi karaan insha Allah. numberka maamada Abshiro ayaa shaashada lagu soo qori doonaa akhbaarta qofkii yacni oo fikrad ama heliho wax ugu taraayo insha Allah halkaas kala soo xiriir maamada. maxamedow baaqcinkee ayaad u diraysaa jaaliyadda Soomaalida haddii ay noqoto ururada u dooda xuquuqda dadka ama haddii ay noqoto masaajidada magaalada ka furan? waa su'aal fiican. baaqan u jeedinayo culimadeena iyo dadka aqoon-yahanadeena iyo advocacy-ga dadka ah iyo activist-yaasha community-ga nagula nool. horta midda koowaad aan u dirayo culimada waxa waaye yacni insha Allah familka kasta insha Allah aan garab istaagno, aan ogaano wax dhabta ah. intii aan ogaanin wixii dhabta ah wax oo comment ah ka bixin karno ma jirto. xaqiiqda markaan ogaano ayaan ka tacsiyan karnaa, laakiin garab istaag ayaa marka koowaad nooga baahan yihiin familka. dambiile adoo ahaan dambiilaha iska dhigin ilaa waxa dhabta aad soo ogaadid. jaaliyadaha oo Columbus Ohio ka suubisan baaqan u jeedinaya waxay tahay jaaliyadaha waxay u shaqeeyaan ummadaad u shaqaysiin marka soo garab istaaga. dhib kasta oo dhaco waxa waa yacni booskaasay toole ina adinka buuxisin oo garab u noqotiin ayaan doonaynaa insha Allah. haddaba jaaliyadda Soomaalida ee Mareykanka ku nool iyo gaar ahaan jaaliyadda reer Columbus waxaa la gudboon in ay taageeraan hooyo Abshiro Aadan si ay u hesho cadaalad.